afhayeenka golaha shacabka Soomaaliyeed Professor Maxamed Sheekh Xusmaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaadhay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka magaalada Qaahira Maxamuud Shariif ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dalka Masar iyo safiirka Soomaaliya ee dalka Masar ahna danjiraha Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta Ambassador Cabdiqani Maxamed Wacays. Gudoomiye Jawaari oo kulamo la qaadan doona madaxda dalka Masar waxa uu la kulmay isla maanta xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd sida uu sheegay Maxamuud Cafiifi afhayeenka rasmiga ah ee xogayaha guud ee Jaamacadda Carabtu. Kulankan oo duhurnimadii Axadii maanta ka dhacay magaalada Qaahira ayaa waxaa la iskula soo qaaday arrimo dhowr oo ay ka mid tahay sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo sidoo kale sidii Jaamacadda Carabtu taageero u siin lahayd baarlamaanka dalka Soomaaliya ugana caawin lahayd dadaalada ay wadaan ee ugu horeeya qabyaatirka dastuurka. Ugu dambeyn Abulqayd ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu si hagar la'aan u taageero baarlamaanka dalka Soomaaliya si uu yiri guul looga gaadho dadaalada ay wadaan baarlamaanku. Socdaalka Professor Jawaari ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhawaan si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qaahira madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu noqonayaa booqashadii koowaad ee Jawaari tan iyo markii dib loogu cimaamaday mar kale xilka afhayeenka baarlamaanka bilowgii sanadkan. Cabdullaahi Axmed Qaalib, SBS TV, magaalada Qaahira.